السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ودين سلامي دمانتين بوميل والعالم كجوكتان وانيغو walaalkiina Amiin Xasan ah idin leh ku soo dhawaada mar kale iyo YouTube channel keega haddaad ku cusub tahay waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid aadan ka hilmaamin inaad taawatid gambaleelka saad ula socotid muuqaalada soo socda maanta waxaan jeclaystay inaan ka hadlo 7 shay ugu fudud iyo 7 shay ugu adag inaad sameyso midda koowaad way fududahay inaad qof aad saaxiib la noqotid laakiin way adag tahay qofkaas aad saaxiib la noqotay inuu ka dhigto saaxiibkiisa qaaliga ah ama adiga aad ka dhigtid saaxiibkaaga qaaliga ah midda labaad way fududahay inaad qof aad jeclaato laakiin way adag tahay inaad qofka aad jecel aad ku abuurtid soo adigana kugu jeclaado inta aan u gudbin midda saddexaad waxaan jeclahay inaan faahfaahin yar aan ka dhigto middan horta waa inaad ogaataa dadka way kala fikrad duwan yihiin dadka way kala aragti duwan yihiin sidoo kalena dadka way kala qalbi furan yihiin iyo sidoo kale dadka way kala duwan yihiin ma aha macnaheeda qofka aad jeclaatay ama qofka adiga ku jeclaaday ma aha inaad adigana jeclaatid waayo waxaa laga yaabaa inaad adigana dooqiisa aadan noqonin ama asiga dooqaaga uu noqonin waad jeclaan kartaa qofka ma aha macnaheedana asigana inuu ku jeclaado qasab ma ahan jacaylka sidiisa bee qasab iyo tuugitaan ma ahan ee qofka jacaylka waa laga keensadaa jacaylku waa dareen oo asiga ahaantiisa qofka nafsid ahaantiisa kasoo go'a waa inaad taas ogaataa ma ahan qofka aad adiga jeceshahay laaziman asigana inuu ku jeclaado midda saddexaad way fududahay inaad khiyaantid qofka ku aaminay laakiin way adag tahay qofka aad khiyaantay inuu mar labaad ku aamino midda afaraad way fududahay inaad qof aad xasuusatid laakiin way adag tahay inaad qof aad ilowdid midda shanaad waxay tahay way fududahay inaad ka ilmeysiisid qof faraxsan laakiin way adag tahay inaad ka farxisid qof murugaysan midda lixaad waxay tahay way fududahay inaad kali aad noolaatid laakiin way adag tahay inaad dadka aad la noolaatid midda toddobaad iyo midka ugu dambeeya ee tahay waxay tahay way fududahay inaad been aad sheegtid laakiin way adag tahay inaad runta aad dhageysatid inta aan ku wada kulmeyno muuqaal kale oo sidaan ah waxaa idinka tegayaa sidaa iyo nabadgelyo